guud ahaanba ardayda gobolka Togdheer ayaa maanta u fadhiisatay imtixaankii shahaadiga ahaa ee Somaliland. ardaydani u fadhiisatay imtixaankani shahaadiga ahaa oo tiradoodu gaadhayso 3,011 arday oo isugu jira ardayda fasalada 8aad iyo 4aad ee sanad dugsiyeedkani 2012 iyo 13 imtixaankani oo saaka ku bilaabmay jawi degan ayaa maamulka gobolka Togdheer ay weheliyaan mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ay kormeer ballaaran oo igu kurgalayaan habsami socodka imtixaanka ku soo mareen ilaa 19 goobood oo kamid ah goobaha ay ardaydu ku galayaan imtixaanka oo ku yaala gudaha magaalada Burco. isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Cabdi Axmed Siciid ayaa ardayda galaysa imtixaankani dardaran adag faray oo ku wajahan qaab dhismeedka ay u galayaan imtixaankani waxaana ugu baaqay si habsami leh uga faa'iideystaan imtixaankan isagoo sidoo kale isuduwahani wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ka warbixiyay tirada ardayda ee sanadkani u fadhiisanaysa imtixaankan. waxa loo fadhiyaa fasalada 8aad iyo fasalada 4aad ee gobolka Togdheer saaka waxay u fadhiisteen imtixaankii shahaadiga ahaa ee qolo walba ay lahayd. taas waxa weeyaan wuxuu noogu bilaabmay jawi caadi ah oo wanaagsan oo imtixaan walba uu goobtiisii waqtigii loogu talagalay gaaray oo sidii loogu talagalay uu bilaabmay oo aad u qurux badan. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahadale. Barasab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Baxle ayaa isaguna tilmaamay inay kormeer ballaaran ay ku tageen goobo badan oo kamid ah goobaha sida tooska uga bilaabmay imtixaanku kuwaasi oo uu sheegay in imtixaanku uga socday si habsami leh. runtii saaka oo sabti ah waxaa noo bilaabmay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa hadday dugsiyadii dhexe yihiin iyo hadday dugsiyadii sare yihiin. kormeer baanu soo dhamaysanay anoo aad iyo aad u wareegnay. waxaa lagu gelayaa 19 goobood ayaa degmada gobolka lagu gelayaa dugsiyada dhexe 5 goobood dugsiyada sare lagu gelayaa. dhammaan ardayda jamhuuriyadda somaliland imtixaanka u fadhiisanaysa horta waxaan ilaahay uga baryayaa inuu guuleeyo oo ay noqdaan midho dhaxal gala. qaar ka tirsan mas'uuliyiinta sida imtixaankan ayaa iyaguna ardayda ugu baaqay inay ilaaliyaan anshax iyo akhlaaqaadka imtixaankani.